cimriga aadanaha waxaa lagu tilmaamaa safar lagala kulmayo khibrado kala duwan casharro iyo isbeddello waaweyn waxayna mararka qaar noloshu ina tusaysaa innaga iyo inta nagu xeeran waxyaabo naga yaabinaya السلام عليكم يور سته اديغا يور ما شاء الله البابك اديغا فري ما شاء الله يور الحمد لله خيركي دما waa fiican yihiin haye Usmaan Xuseen Nuur oo ku magac dheer Damoomay ayaa noloshiisu guud ahaan waxa ay kulansatay sifooyinkaasi oo idil safar uu doonayay inuu kaga baxsado faqriga iyo kadeedka ka dhashay khilaafka hubaysan ee dalkeena ayaa waxa uu u horseeday inuu wajaho xaalada ay reerkiisa oo ay ugu horeeyaan waalidkiis walaalihiis iyo afadiisu u qaateen inuu ka tagay dunida ama uu dhintay balse sanado kadib markii ay ka soo wareegtay aaskii iyo xanuunka baroordiiqdii geeridiisii loo qaatay inay dhacday ayaa sida ay noloshu ahayd waxay u horseeday isaga iyo ehelkiisa iyo xaaskiisa la yaab iyo amankaag kadib markii ogeysiis la'aan uu ka soo muuqday iridka xaafadii uu ka deganaa Muqdisho horta wadanka ujeedada burbur iyo rafaad ka dhacay wadanka burbur iyo rafaad markuu dhacay waa iskaga tagay reerkaygi iyo ciyaalkaygi oo dhex jooga iskaga tagay cabsi daraadeed oo macnaha madaafiicdan waxaan ku dhicin darteeda tahriiba iska galay marka tahriiba iska galay Itoobiya tagay Itoobiya marka tagay tahriib galay tahriibkii intii xuduudda lagu qabtay xuduudda markii lagu qabtay waa Itoobiyaanka ay qabtay guday igu rideen muddo 7 sano ay anigu reerkii iyo ilmahayga ay weysanayeen tacsiyadeedana waa la dhigay markii aniga dib u soo noqday reerkayga iyo ilmahayga waa waayay markii ay imaadeen hooyadii iyo walaalahayga dhan waa ugu farxeen farxadaas darteeda ayaa hadartan wadankan u dhex joognaa ilmahayga iyo reerkaygan sidaas darteeda ayaa ku waayay Canab Xuseen Nuur waxa ay la dhalatay Usmaan Damoomay markii uu kadinka ka soo istaagay guriga walaalkeedii ay nolosha kaga samirtay waxa ay wajahday xaalad cabsi ah waxa uuna dareenkeedu isku bedelay si aysan u suurayn karin markaasi war iwaayo waa ka weynay hadaan ka weynay markii bacdi waxa la yiri wiilku uu dhintaa u qabsanay tacsiyaan u dhignay gabadhina asaayaan u saarnay asaaga haday ka degatayna wax saasay ma sii soo jooganin nin bay argusatay muddo markii laga joogo ka bacdi ninkii soo ordaabano imaad faaji'ay ay nagu noqotay arintaasayto war naxdin oo farxad leh farxad hadii la farxo aad baa loo naxaa soo maahan aad baan u naxnaanaga laakiin wax ku sii faraxno hadana waxaan ka sii naxnay ninkii oo naagti qabay oo walaalkay oo naagti qabay oo naagtii nin guursatay waji aan kula hadalna aan weynay gabadhina ilaa ay hadeertaan waji ma siin karno oo ma tagi karno arintana meel ma saarin soo noqoshadiisii waxa dhacay wax uusan filayn waxaana meesha ka baxay xaaskii iyo ilmihii uu nolosha halista badan u galiyay si uu ugu soo shaqeysto waxaana lagu wargeliyay inay nin kala guursatay afadiisii sanado kadib markii isaga raq iyo ruuxba laga qoostay wallahi wax weyn aad ayaa dareemaa sababtoo ah waa taqaana marka adiga reerkaaga aad dhex joogtid in marka reerkaaga ciyaalkaaga aad weysantahay waxa waaye noloshaada naaqus ay noqonaysaa marka naaqus ay noqoto nolosheeda shaqo hataa niyad hataa uma hayo sababtoo ah reerkaaga iyo ciyaalkaaga maadaama meesha akawaas waxa niyad kuma hadda isagu waxa uu u nool yahay sida qof aan noolayn dhimanna inkastoo noloshu ay tahay halgan mana jecela inuu soo xasuusto maalmihii kadeedka iyo urkutaalada u badnaa ee uu sagootiyay hase ahaatee asxaabtiisa xaafadda ayaa ku waaniya inuu dhacdooyinkaasi is-ilowsiiyo ninkan waa ka tagay 7 sano Itoobiya ku xirnaay marka cidooda tacsiye dhigeen markuu muddo xirnaa hadalkiisa dhana la waayay meel walba laga raadiyay inta macnaha Itoobiya meel lagu ogaay markii la waayay kadib cid waa iska sabreen marka tacsiye marka cid dhigteen hataa si waxaas loo baahay hataa marka cidna way ka sabreen markaas kadib muddo saas u maqnaay marka dib waxa dhacday inuu macnaha waxa muddo kadib oo wadan ku soo laabto macnaha oo cid dhan macnaha dad qaarna naxeen qaarna farxeen
marka waa sheeka ama macnaa cajiib ee macnaa dadka la naqata anaga naftirkeena nolol sheegay waa aad iyo aad ugu faraxna saaxiibkeen inta uu naga 7 sano intaas la eg oo marka wadankaas oo Ethiopia ku xirnay xilliyada uu idinla joogo kale wax shucuur ah ama dareen ay arintii ku dhacday ay ku hayso kale iyo ma ku aragtaa ma marka qaar macnaa waa noogu sheekeeyaa sababtoo ah loo joogo amal sheekooyinkii macnaa waxa mar waxa la naqanay macnaa waa maxay si oo ama kaako kala amal marka mar waxa dhan anaga waa nin wadaaba adigu ku aragna buu macnaa waa farxad inoo tahay marka ma sha Allah waa wiil caafimaad ku soo celiyay inshallah taala waaligi soo booqateen ma santa inshallah aniga waxaan kula dardaarmaa xanuunkaaga aan oo dareemay in aadan isdhiibin inshallah waayo waxay Soomaalidu tiraadaan nolosheeda waa halgan marka quusan waad guuleysanaysaa inshallah waa ma santa xigmadda ay warbixintani leedahay ayaa ah in dhalinyarada haatan haminaysa tahriibka iyo safarka qaxarka ah ee lagala kulmo ay kuwana qaataan qisada damuumay oo aysan qoryo u guran quud aanan jirin maxamuud soo faysanay telefishinka Kalsan Muqdisho